الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد ولا ليال وحنا سو غاري maxaa keeno ama lagu garan karaa calaamatul ayn isha in qof kaano la ilaastay. isha iyo xasadku waxay ka mid yihiin dabeecooyinka aadka u xunxun iyo arrimaha aadka u faasho xun iyo cudurrada aadka dadka bulshada dhexdooda kala geeyo oo carada ka dhex abuuro iyo dooda iyo in la kala jeesto taasoo keenayso murug iyo walbahaar. waxayna fasahaadiyaan inta badan isha iyo maaragtay xasadka bulshada dhexdooda ay fasahaadiyaan, waxayna baabi'iyaan kalgacalkii iyo naxariistii la soo qabay ayay baabi'iyaan. marka isha wuxuu ku tacriifiyay sheekh al-Iraawi ibn Qayyim inay tahay sihaamun takhruju min nafsi al-haasid wal-aa'in, inay tahay gamuun ama leeb ka soo baxayo qofka caa'inka ah oo qumaga ah ka soo baxayso kuna wajahan qofka maciinka ah oo la qumaysanayo. mararka qaarkood way ku dhacdaa toos ay u dhacdaa, mararka qaarkoodna way gaftaa oo way reed martaa. laakiin markay reed marayso waa mar oo qofku muuqaal ahaan iyo libis ahaan oo aad u qurxoon yahay markay ku dhacayso. marka kaleetana waa mar uu daruufaysan yahay markay ay hareer marayso ama aysan ku dhacaynin. markay hareer marayso sidaas ay noqonaysaa. marka sidaas darteed marka isha waxyaabaha lagu garto waxyaabo fara badan ayaa lagu gartaa. waxaa lagu gartaa qofku inuu gubto, inuu macnaha asiga dhanba oo cibaadadii iyo waxyaabihii uu qabahayay uusan samayn karin, inuu mararka qaarkood asoo iska fadhiyo oo iska ooyo, mararka qaarkood inuu waxyaabaha uu meel dhigay oo heli waayo meesha uu dhigay, ballan haddii lala galo ballantii inuu ka bixi waayo oo kasoo bixi waayo oo asiga dhan caajis iyo rabuus waxyaabo badan ay soo saarmaan. sidaas darteed marka intaas aan sheegayno waa astaamaha lagu garan karo. maxaa marka la iskaga ilaalin karaa ama la iskaga daaweyn karaa markii qofkii ay dhacdo inay waxaas isha ay ku dhacday? maxaa lagu daaweyn karaa? marka ugu horeyso ruqya sharciya ay qofku aadaa tufid oo sharci ah. ruqyadaasi ama tufidaas sharcigaana waa sida soo socoto. wuxuu isku akhrinayaa ama lagu akhrinayaa qofka suuratul faatiha, waxaa kaloo lagu akhrinayaa aayatu kursi, waxaa kaloo lagu akhrinayaa qiraa'atul aayaat aayadda 117 iyo aayadda 122 oo suuratul ahraaf kamid ah ayaa lagu akhrinayaa. waxaa kaloo lagu akhrinayaa aayadda 82 ee suuratu yunus kamid ah ayaa lagu akhrinayaa. waxaa kaloo lagu akhrinayaa aayadaadka ugu aayaadka 69 70 oo suuratu daaha kamid ah. waxaa lagu akhrinayaa suuratul kaafiruun iyo suuratul ikhlaas iyo suuratul mucawwidatayn oo ah suuratul falaq iyo suuratul naas ayaa lagu akhrinayaa. markii intaas lagu akhriyo biidnillaahi insha allahu tacaala qofkii wuu caafimaadayaa. waxaa kaloo lagu akhrinayaa adkaarta soo aroortay oo ah acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq. waxaa kaloo lagu akhrinayaa acuudu bikalimaati illaahi taama min kulli shaydaanin wahaamah ومن كل عين لامة. intaas ayaa lagu akhrinayaa qofka biidni illaahi subxaanahu watacaala uu raysanaya. haddii la yaqaano marka qofkii oo ish ilaysatay oo ishaas qofta ku dhufatay haddii la yaqaano oo isha ay uga dhacday haddii la yaqaano qofkii loo tagaa. markii qofkii loo tago waxaa la leeyahay sidaas ayaa samaysay oo aan fiicnayn, laakiin insha allah waa lagu cafinahay qofkan oo aad isha ku dhacday ushaada ay ku dhacday meel gal usoo qubayso. markuu soo qubaysto biyihii qofkaas oo kusoo qubaystay ayuu qofkaan ku qubaysanayaa oo isha ay ku dhacday wuuna raysanayaa oo bogsanayaa. wabilaahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.